haddiiba aan jeclaysto inaan mid ka mida suugaantayda idinla wadaago. Anuu jooga dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, xaafadda Kislay, ayaan maqaaxi tegay ku taala. Waxaa fadhiya niman dhalinyaro ah oo ku siman 5 ilaa 6. Markii aan si qurux badan oo wanaagsan isku bariidinay ee aan kursi fadhiistay, ayaa waxaan arkay wiil dhalinyaro ah oo 10 tallaabo waxaan ka badnaynoo jira, isla mar ahaantaana isticmaalaya teleefoonadan smartphone-ka ah. Waxaan u haystay in wiilkan dhalinyarada ahi kursiga aan fadhiistay uu ka kacay. Waxa kale oo dhinaca bidix fadhiya amaba aan wax badanba noo jirin oday Soomaaliyeed oo waayeelah oo cimri ahaan ilaa 70 jir weey, korkiisana diif iyo daal iyo xumadi ka muuqato, isla mar ahaantaana caguhu barareen. Anoo odayga xaaladiisa caafimaad dareemay in gaba uu heliyo, ayaa waxaa dhacday in wiilkii meesha taagnaa mar kaliya cod kore ku yiri, "Soo kac, maxaa kaa khaldan? Haddaad xanuunsanayso oo aad bugto sariirtaada turdi lahayd, maxaad noo weerarinaysaa?" Runtii waan naxay, aniga iyo nimadii kalena waan kacnay. Waxaan ku war maxaa kugu dhacay odayga waayeelkaas sidan ugula hadlaysaa? Waxoogaa anu yuuji kartay. wuxuu yiri, war niman yahow, aniga mushkiladii dhib ay haysata. Bal waa kane weydiiya, haddii uu xanuunkan hayaa dhib ka yahay uu sariirtiisa u jiifi waayay uu noo weerarinaya. laamidan markuu ka gudbo lamada kale fariisi u leeyahay. Kadibna odaygii baan la hadlay oo wuxuu yiri, adeer, waxba ninkan ha ku daalina. Anigu halkan damaashaad iyo ciyaaru maaniman xanuun baa i keenay, isaga ay soo raacay, anaana dhalay. ilaa maalintu Turkiga ay keenay ilaa maanta sidaas iigu yahay. Waxaan doonayaa inaan iska noqdo ee iska fadhiista. xanuunkaygoon ku samraa ee roone. Arrintaasi dareen ahaan aad bay i bedeshay. Inanka waxaan hadal oran karayay waan idhi, wixii aan la dardaarmi karayna waan la dardaarmay. Intaan ka naxay odayga waxaa ka badnayd intaanu naxaynanka. waayo waxaan ogahay sida shilin jeebkaaga ku jira aad waxaad u baahato aad ku iibsan karto, in erey iyo guhaad iyo afxumo aad waalidkaa u geysato aad ku kasban karto, inkaar iyo hooq iyo naxdin inta aad nooshahay baan ka harin. laakiin haddii uu intaa ogaan lahaa, waxaan filayaa in inakaasi aanu amuurtaasi ama ficilkaasi sameeyeen. dareen ahaan arrintani aad bay taabatay. waxaana ka sameeyey maasada la yidhaah cadho waalid. maasadii cadho waalidna waa tan ee ila dhegeysta. weli dunida maad caban, kugumay caddaan talo, maad arag cidhiidhiga, cidlo wehelkamaad dhigan, waqti caasha kuma surin, dhibta maad cawaysimin, qofay hayntu ceesho walwal ceeray maad noqon, shaqurana maalmuhu dacar kuma cabsiin oo cibro kuuma tababarin, cashar kuuma dhigin adag, dadka caame iyo mudan, qof la cawlan maad noqon. isigaagu muu lumin, calafkaagu muu gurin, cawadaadu may dumin, cidhibtaadu may gu'in. cududaad ku faantiyo xooggiyo caddaankani cidlo kaagamay iman, waxaad tahay curuuqaha cadka aaba laga jaray. imisuu ku ciil tiray intuu dhiilka soo culay caanadhaya kugu habay. cadaadiya qansaxa daran cagta qodaxda kaa jaray. imisuu siriicaad cadka kaad u qalantiya cambaariya mid quudheed si caddaana kuu faray. kolu celiyo xoolaha, kolu ceelbiyood shubo, kolu dhisa cariishyada, kolu maydho calallada, kolu caday uu soo guro, kolu daas yar calafsado, kolu gaari gacan culus curuuquhu ku daalaan, cimaarado rag leeyahay koluu ciidu kala rogo, xasha kuulin laga dhigo, camal baadidoonkii carabaha koluu tago, kol albaabka sii celi soo celi ku xoogsado, siduu kuugu hele ceesh muxuu kuu carraabo, ceeryaamo iyo dhaxan, dhadaacaal madow iyo cadeed iyo kul kuu maray, cimirkayna kuu galay, caska waaga kuu kacay, kuu guday cerjiidhaha, corotaa baqaadiyo inaad noqoto ciiltire waxa mali cidhiidhiga. maadaa cadhoon kara, maadaa cadibi kara, isna cunaha qaban kara, qura ku celin kara. calooshaada oo madhan weligii wax muu cunin, oon caafimaad qabin cawdiisa kuma ladin, isagoon ku ciidsiin dhar cusayba muu gadan, cabsi iyo dagaal jira colaadkaaga muu tegin, culays heer kastuu yahay niyad xumo kamuu celin, itaal ceel kastuu dhiga caynaana muu degin. caabin hawlu kuu galay cagtaa daashay muu odhan,
ceeb waxaad leedahay calool maalin kuma qaban cajo kaa cawaran weli cid kumuu hallayn kale isagoo aan cuud iyo camal iyo adduun hay noloshuna cakiran tahay oo jeebku caydhyahay canamaal kumuu gabin cimrigoo siyaadaa cawaraayo taagtee ciroola taag daran culays weeye ruux qaba gabow caasha saaraa ceerceerka badayoo wuu lumay codkiisii wuu tegay cadkiisii wuu dhaga cuslaadoo caadfula dhaayah bukaan weeye cudur iyo cuskadeen xanuunadu maaha caydi kula mida haddii uu cag fududaa cararkana ku roonaa beri caafimaad qabay abbahaa cad weeyaan maanta caawimaad iyo kaa mudan cisaynteed damiir ceebta diidiya aqlimaanu kugu jirin cashar maanka koriyiyo cilmigiiyo shareecadama waxaad ka tahay caydh umuu soo ciyaar gudin radani shisheeyee duqan caguhu barareen us buu la ciiray abbahaa ma cudurkaad ku canaananaysaa caamiyi nin liitaa hadal daran ku celiyo cadowmooda kii dhalay agtiisana ka caaguu karahoo ka cararee yaan cisayntu kaa gurin waalid caasi ha u dhuran inkaar lagu casuumoo laga naca carshiga sare nin hortaaba caasiyey waalidkiina ciil baday oon calaamo lagu ridin carre edeg laguma arag cabku waalid liitoo haddeer ceersimaad biday cuskashada ul jabaysiiya waa yeel culays qaba marna lama canaadee cirkan kaa sarreeyaa inuu caawu kugu dumo ama ciidan hoosiyo dhulka caadil kula jaro ciliblaawo kaa dhigo maanad kaba cabsoonayn ina daga cuslaato xuduudaha laxaadkiiya ka curyaanta dhaayaha ama ciidda miistoo xisuka ciladoobood waa li tuurta calalada maanad kaba cabsoonayn noloshuba cibaariya dhacda xusubma weydoon inu baxay cirkaa sare wakhtaa hoosu soo celin adna waad cag fududee miyaad cududa weynaan calankaagu taagnaan ligaa cudoonaan cadeedaa dhacaysiya maalmaha cartamayaa ku carraabin doono xajiriyadaabaad noqon deediyo carjoodiyo wuu tegi cadkaagani ribaad cambuusnaan sida caday u dhuubane hadhitaysan cuqubada adoon hadalka celin karin cawradaada dadan karin rabkaagu talax gabay carruurtiiyo dhashaadaa kugu caragsan doono waad cabasho badatee naga daacatowgiyo kugu odhan cabaadkee yaan cadhada ee biyo cawri waalid kugu dhicin ku cuskanin inkaaruhu caydhiyo saboolnimo yaan cidhif laguu surin dadkayaad qof caano farta lagu cilaalo dex noqon cambaar qaba carabkaagu yuu baran hadal caabu keeno yaan colaadu joogiyo bala caashaq lagu qorin daab haw amaah guran ha ku noqon xumaha caan hana galabsan caaluwaa iyoon labada dago ku casilo ilaahay inan kasta iyo inan kasta ayay ku socotaa macnaheeduna maaha inaan inanka canaananayo laakiin intuu sameeyey inteedaan uga digay inan kasta oo waalidkii nool yahay ilaahayna qur-aankiisa ayuu ku sheegay xaqa waalidku leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu